بلدكم ما يلقصوا بيهم ولا يلقصوا بما يكمل حفيسدي قارة بدلي أو ما ينسوا بيهم ولا هادوك هور ما بلنقصوا بين وطنكم ينقصوا بيهم حفيز تيال أو عصبهم ينقصوا بي أو ينقصوا بي إذا لم كبار دي أصول تاس يوالي كلا أسكالي الله خير والشر مهم لغة الشرعية مصلحة عامك أو ضلك أو كسارسا نظامك حير إلى ياش ضلك waxaan maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadi halkaan isugu nimid magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed shirweynihii qaran ee xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed maadaama oo xafiiska xeer ilaalintu uu yahay kaalin muhiim ah ama door lama ilaawaan uu ka qaato hay'adda garsoorka waxaa marka noqotay lama maarmaan in halka xaliraashir lisu yimaado xalaalinta sidaan aaminsannahay waa aas-aaska garsoorka laannoo dee xeerlaalin aysan jirin maxkamadna ma shaqaynayso xeerlaalinta waxaan aaminsannahay inay lafdhabar u tahay cadaaladda waxaan rabaa fursadda aanu ka faa'iidaysanayo inaan fariinar u diro dadka ku noqon reer baydhabo waxaan rabaa inaan u sheego garsoorid ha noqoto meelaan maxkamad aan garsoor aan loo tegi karin waxaa badatay in la furto meelo dadka la leeyahay waxaa lagu garnoqaa maxkamad ama dadka lagu garqaada in la dhaho ha ahaadaan cadowga ama ha ahaadaan qof kasta u ahaado waxaan rabnaa meesha keliya oo loo maxkamad tegi karo oo qofka uu gartiisa uu ku noqson karo inay maxkamad ahaato وزارة عدالة القصور مهوسين هذول القصور وزارة عدالة وزارة حبل كمية ماملك فلمت سيدا درتي عليها هاي دمان هي ده هاي خصيصه هو رئيس فريقلته قسم لي القصور أما فلين هالنقطة أما برلمان هالنقطة إنه تلاوة الشرع درجة إكوان تروان وحكى دارن كرف الدنبية مرة كام حاجة وحا إيمانية abuse of power حتجذب قانوني ها إيمانية قالم كاجا حتجذب هكو آدي قرصور هو هيئة مدح بنان شقد إذا مدح بنان حن عطسنا هنا مدح الشرف طالب هي أداها الدولي جاء وهذا شقيته هي كده حيسب مدام عن هل هي كل هالدولة إن هي أقول بشقد قانون وإجمد اللود تعين shirarka noocan oo kale waxa weeye waa meelaha la isku waraysto ee la isku weydiiyo maxaa inooga hirgelay qorshayaashii aynu lahayn sanadkii tagay ama sanadka aynu ku jirno waxyaabihii inoo qorshaysnaa maxaa inooga hirgalay markaas waxaa loo baahan yahay inaan loo fikirin oo keliya xafiiska xeeraalintu inuu dembigu markay CID u soo gudbiso ama booliska u soo gudbiyo inuu dacwadii oogee sida ay u baadhayaan iyo habka loo marayo iyo tallaabooyinka la qaadayo dhammaantood waxa loo qabanayaa instructionskiina iyo jihayntiina arrinta lagu soo celceliyay madax banaanida garsoorka oo ka kooban xeeraalinta iyo maxkamaduhu runtii madax banaanida garsoorku waxay dan u tahay qof kasta waayo dal waxa lagu qiimeeyaa kow inuu leeyahay garsoor madax bannaan
dal haddii laga waayo garsoor madax bannaan dalkaasi waxa uu ka mid noqonayaa wadamada fashilma